soomaaliya waa mid soomaaliya waa mid ma kala go'i karto waxna kala gooyana ma yaalaan is-afgarad waa iyo maxaan ku rahaa tabashooyin iyo dhaqan aan la jeclaysan inta waja laakiin walaalayaal mid soomaaliya waa mid nin kastoo soomaali ay gabar kastoo soomaali ahna waa inay ku hamisaa in ay soo aragto indheheeda ku aragtay inta ay nooshahay dalkii oo midnimadiisii mar kale isu toostay lees marxabeeye lees jeclaaday walaalaha waqooyiga waan jecelnahay waanan sheegnay waanan ku celinay waana u xiise qabnaa waana u hamuun qabnaa inaan helno annaga oo qalbigeennu isu fiyow yahay qalbiga unbaa mugi soomaalidu waxna ma kala qarsoona ganacsigana waa ku midaysan yihiin wixii kaloo horay u dhasheenoo alla hibo u siiyey ku midaysnaayeenna waa ku midaysan yihiin noloshana waa ku midaysan yihiin siyaasadda xoogaa yar oo maxaanku idhahda mugdi nooga jira waqooyi iyo koonfur keliya ma aha siyaasadda mugdigeeduna wuxuu ku jira annaga koonfurta dhexdeennana waa ku jira waana waxa aan maalin walba meel ka soo gudbayno oo aan u hambalyeynayno kalama guulaysan karno kalama roonaan karno kalama hormari karno waan wada guulaysan karnaa waan wada hormari karnaa waana wada guulaysanaynaa haddii alla yiraa dadka soomaaliyeed awoodda go-aan gaarista in la siiyo kooxi waa u gaari wayso qofna waa u gaari waaye qabiilna waa u gaari waaye war dadkiioo go-aan gaara cali iyo jaamac iyo calasow iyo caashe iyo ceeblo kala doorta tii aad dantiinna inay waddo ama kii aad dantiinna inuu wado aad u aragtaan doorta warkaad ugu bogtaan dantiinna ku haysta meesha kii aad ugu bogi weydaanna waa mahadsan tahay dhahaya maxaa sagootiya wakhtigiisa markuu dhammaysto wakhtiga teeramka ah waxaa loo sameeyey waxay tahay dadku inay go-aan ku gaaraan raalli ahow adiga waa ku soo aragnay waa mahadsan tahay war maya ee meesha aad joogtay nooga wad oo maxaanku idhahdaa horar u soco inay dadka yidhaahdaan dadka fursaddaas ha la siiyo waxaan u taagannahay maanta leenahay waxay tahay afarta ajanda ee noogu waaweyn dalkan baahida dalkan jirtaa waa badan tahay waxa in laga shaqeeyo la rabaayo waa badan yihiin waxa in la toosiyo u baahan waa badan yihiin ma wada toosi karno ma wada qaba karna mar laakiin ma kala horumarsan karnaa oo ma xulan karnaa kuwa marka aan qabanno kuwo badan oo kalena ay automatic yihiin oo inoo qabsoomayaan iyo waxay keliyiin kuwo markaan qabanno ayaga besaan qabannay mid walba mar la istaagay kugu noqonay maya waxaan xulannay kuwa marka aan qabanno kuwo kale oo badan oo qabasho naga rabaayo ay automatic tahay oo toosayaan waxaan dhahnay dalka amnigiisa aan ka shaqayno khawaarijta aan iska kicinno markay khawaarijta aan iska kicinno sida caawa aan arkaynaa bilowka ah suurtagal ah waagii magaalada muqdisho khawaarijtu ay saa u haysatay oo dhiigga dadka daadinaysay oo 14 Oktoobar iyo maalmo kale oo fara badan maalinba meel ay dadka ayagoo tarab ah ay laaynaysay sidaan miyaa suurtagal ahayd caawo kale sidaan inaan isugu nimaaday iyo xalay wixii magaalada ka dhacay miyaa suurtagal ahayd amni inaan helnaa suurtageli umaanan qasdin ma dhayn aan xafladayno aan bannaanka isugu nimaada ajanda aan ka dhigana maya amniga aan sugnaan qaadanay magaalada muqdisho amnigeeda iyo dalka amnigiisa waa sugnay kuwaas waxaasaa ka dhashay wanaaggaasaa ka dhashay sidaas daraaddeed amnigu waa fure albaabka oo wanaagga aan rabnaahay oo naga jiro dhan furihii lagu furaya waay waa kow waxaan ka liidan amniga waa midnimada soomaaliya oo mid ah soomaaliya war bal farta ila taaga soomaaliya oo mid ah soomaaliya oo mida inaan helnaahay waa ajanda iyadana weyn oo aan laga seexanayn laga gamayn laga wax ka qiimi kasto ay leedahay aan diyaar u nahay inaan ku bixinno in soomaaliya oo mida aan helno xoola haddaan leenahay inaan ku bixinaan diyaar u nahay maxaan ku rahaa karaama haddaan leenahay inaan ku baryootanno oo aan walaalaheenna kale ay nagala dhexayso aan ku barinaan u leenahay cid noo keeni karta male annaga dhexdeenna unbaa midnimada keensan karno waa qodobka labaad qodobka saddexaad waataan in badan ku hadaaqno ku celino war dadka talada aan u celinno
dadka talada waa idin celina ma dhihi karno haddaan xeerar iyo nidaam iyo lawaaix ay talada ay ku gaari karaan go'aanada ku gaari karaan kii qaldan lagu qaban karo kii saxan lagu garab istaagi karo ra'yigii suuban lagu soo bandhigi karo haddaanan samayn waa dastuurka dhammaystirkiisa dastuurka waa heshiis bulsho oy ummaddani ku heshiisay sidaasaan yeelaynaa waa wax aan ka gaarayna go'aan waxa soo socda ma aha shalay ma aha waxa soo socdaan go'aan ka gaarayna war berri sidaan haddayna qabatay see yeelaynaa saanaan yeelaynaa sidaan haddayna qabatana see yeelaynaa saanaan yeelaynaa meelaan sii dhiganaynaa waa xeer aan rabno nolosheenna inaan ku hagaajinno adduunyo nolosheenna adduunyo inaan ku hagaajinaan rabnaa oo aan dhahno waxa naga dhexeeya aan ku dhowranno talada naga dhexaysa aan ku dhowranno isagaas markaan samaysana marka maxaa suurtagal noo ah mujtamaca ummaddu inay go'aan gaartaa aa suurtagal noo ah ummaddu anigaa jooga waxaa isoo doortay 330 xildhibaan oo labada aqaloo baarlamaanka ka kooban ayaguna waxay u taagan yihiin oo soo doortay dadkii laakiin xaqiiqada dhabtaa maxay tahay 28 kun oo qofaa soo dooratay iyo in la mid ah malaayiinta soomaalida aan rabnaa inay soo doortaan malaayiinta soomaalida aan rabnaa qofka madaxweynaha u noqonaya inay ayaga doortaane tiro yar oo meel ku jirta inaanay dooranin dadka soomaaliyeed waxa aan la rabnay iyo himilada aan u leenahay waa taa ma garanayo cid ay khasaaro ugu jirto ama ceeb ay ku tahay ama ay wax u dhimaysa ma garanayo anigu waa ra'yi bini aadana hadday jirtana waa la igaradsii karaa laakiin talada dadka aan u celinno go'aan aayahooda iyo mustaqbalkooda iyo sida loo hogaaminayo iyo sida loogu talinayo ha gaareen fursad ay go'aankaas ay gaareen ku fuliyaanna ha la siiyo kama dhex arko cillad iyo ceebaal ay leedahay oo ka muuqda ma laha waana sidaas 7 bilyan ee bini aadamka ay adduunyada ku nool siday u dhaqanto badankeeda waa sidaas siday u dhaqanto maxaa annaga gooni naga dhigayo 54 dal oo qaaradda afrika ku taallaan mid ka nahay sida intooda badan isku si ay u dhaqmaan waa laga yaabaa 1 iyo 2 iyo 3 kays oo ka duwan inay jiraan boqortooyooyinaa jiro wax kalaa jiri karo laakiin kama duwanin kamana caqli badnin kamana dadnimo badnin bini aadan ilaahay abuuraan nahay dhammaanteen 9 bilood ku dhashay walaalayaal dadku siday u dhaqmaan aan u dhaqanno haddaan dadka siday u dhaqmaan aan u dhaqmi weyno sida duunyada u dhaqantaan u dhaqmaynaa sida duunyada u dhaqantana waxbaan ka soo dhadhaminay sharciga duurka sharciga la yidhaahdo waxbaan ka soo dhadhaminay nin walba ninkuu ka xoog badan yahay ha dilo ha dhaco ha boobo waa soo dhadhaminay waa soo aragnay sharciga duurkaa la yidhaahdo sharciga xoolaha iyo dugaagtaa la yidhaahdo ma aha sharciga dadka ma aha dadku caqligaa ilaahay siiya caqliga waa inuu taliyaa oo u taliyaa waxaan rabnaa marka ajandaha dowladda waa 4taas qodob ajandaha dowladduna waa xaalad la socod waaye shalay cunaqabatayn hub iyo maxaan ku idhaha deyn cafin iyo waxyaabo kalaa muhiim noo ahay waa ka soo gudubnay diilada adduunka uu naga qabaa waa waxaan muujinnay waa wax nalagu arkay wax nalala jeclaada ma aha 65 sanaa nalala jeclaan lahaa haddii layska keen jeclaanayo nalala jeclaanayo marba meelaan soo marayn mar xog ogaalnimo la raadinayo oo khayraadkeenna la baarayay markii la ogaaday oo duruufaheenni ay keeni waayeen duruufaha keeni waayey ma aha keliya dowlad la'aan siyaasaadka dowladdaasi ay ku dhaqmaysay iyo ay diidan iyo mustaqbalka fog sideedaba xorriyadda markaan doonaynay odayaasheennii gobonnimada u soo halgamay 13 iyo intii kale ka dambaysay ee la shaqaysay intii laga soo gaarayay 60kii dadka Soomaaliyeed waxay u sheegeen dowlad ayaan naqanaynaa dowlad markaan noqonana wanaaggaan gaaraynaa wanaaggii la gaarayay maxay ahayd waxa midaali ahay markaas oo dowlad ahay gaalka noo joogo oo xukuumadda dowlad noo ahay kaasaa noo muuqday
guriga qurxoon uu degan yahay baabuurka qurxoon uu ku socdo labiska qurxoon uu wato waxa uu wataa dadka wax la tusi karo ay ahayde xorriyaddii aan qaadanay nasiib darro gaalku guriguu deganayna waa degnay gaarigii uu watayna waa wadanay taasi waxay suurto gelisay dowladdii iyo dadkii inay kala baxaan oo dadkii wax dambo 60kii waa la gaaray haye oo ma niman muxuu ahay guryo qurqurxoon iyo muxuu ahay kooda suudis cadcad wato iyo maxaan ku ihahdaay miyaan muxuu ahay anagu war waxaa naga maqan taasi waxay dhashay 80 iyo dhowrkii xisbi oo xisbi walbaa jufo hoose u ahay dalka inay gadaal inta furo xaggee gadaal u noqdaanay meeshii ay ka yimaadeen oo qabyaaladda iyo qabiilka ahayd inay u noqdaan siyaasaddii meesha ay la aadaan dhibka ka dhacay waan ogeyn kacaankiyaa noo yimid military waad ogtihiin warqaddii koowaad iyo warqaddii labaad ee kacaanku u soo saaray midna 6 qodobay ahayd midna 7 qodobay ahayd inteennii nasiibku eeshay oo joogtay yaa xasuusata ah midna siyaasadda arrimaha dibadda ee dalkay aad uga hadlaysay midna siyaasadda arrimaha gudaha ee dalkay aad uga hadlaysay muddo kooban warqadahaasi wixii ku yiilay waa la gaaray amniga dalka in la soo celiyaa ka mid ahayd oo aad garanaysaan amni aan caadi ahayn dalka inuu qabiil ajenda siyaasadeed ma leh siyaasadda kama dhex jiri karno qabiilka qabyaaladdu siyaasad nooma noqon karto siyaasadda ra'yi casri ah oo qarniga 21aad ummadda meel u wadi karo mustaqbal ifaya u muuji karo dhihi karo war meeshaasaan u soconnaa yaa laga rabaa siyaasiga inuu la yimaado siyaasiga sii cararaya qabiilku cararaya haddaad aragtaa waa nin ra'yi ka waay bankrupt of idea waa nin ka fakriyey xagga ra'yiga yaa tolahey yaa reer hebelahey haddaan reer hebelnahay dadka ayagoo siyaasad ka hadlayo ku muusanaabayahay waa dad muxuu ahay ra'yiga ka dhammaaday oo aan lahayn ra'yi inaan qabaa'il nahay waa run ma la dafirayo qabyaaladda siyaasadaysan weliba waayo waxa xun waxaan rabnaa marka maanta waxaan taagannahay meel war dadka soomaaliyeedow dad yacni ayagu waxa ay rabaan oo maanta jooga oo maanta waxay rabaan maanta waxay jecel yihiin iyo maanta bas ku eg ma ahin maanta hoggaanka dalka jooga qaybihiisa kala duwan waa dad hoos intuu isu warsaday rabaa hiigsiga fog ee ummaddu ay gaaraysana inay calaameeyaan waddada loo maraayana ay calaameeyaan oo lagu gaarayo war waxaan dhahnay ummadda soomaaliyeed meeshaasay mudan tahay inay gaarto sida ay ku gaari kartana waa sidan waa nalalaga doodi karaa waddadan waddo ka fiicana jirtaa nala dhihi karaa oo la maro laakiin la mari maayo nalama dhihi karo ma yeelayno la mari maayo la soco maayo inta la aadi maayo ma yeelayno laakiin yaa waddadan aad tilmaanteen waddo ka sahlan ka qiimi yar ka toosan ka dhib yar ka habboonaa jirta waana la dhihi karaa miiska waa la soo saari karaa annaguna kuwii qaataan nahay haddii la soo saaro laakiin maya waa maxay xasan sheekh asaan yiri haye maya shee aadan madoobaa wada waxaan oo saan yiri maya odagii cabdi xaashe odageen ayaa xoogaana waxaa asaa wada ma yeelayno yaa wada hebelaa wada iyo yaa reer hebel waa naqaanaa ra'yigooda war soomaaliya waxaas aan ka nimaado 35 sano iyo muxuu ahaa dhowr iyo 10 sano kasii horreysay 40 sano 50 sano waa nagu filan tahay kelmadaha haraadiga ah ee aan soconaynin ee hore usoo qadimo bayaanan yeelin wax cusub aan la nimaado ilaa aan cadday karno matalan waxaan hadda ku hadeeqaynaa waxaan leenahay hiigsiga qarni jirka ah war soomaaliyaan rabnaa 2060 qarni 100 sano markay jirsato meeshaas soomaaliya noocaasaan rabnaa meeshaas inay joogtaan rabnaa saasaan u rabnaa maya ma rabi kartiin ma yeeli karno laakiin waxaan yeeli karnaa war mid ka yar oo ka qurxoon oo ka dhow 35 sana ka dhimantaase 10 sano ka bacdi middaana oo ka qurxoonaan gaari karnaa waana sidaan ku gaari karno qofna dhaha waa rabnaa waa jecelnahay waa rabnaa
laakiin 10 sanana aan gaarno 5 sanana aan gaarno midda kalena aan gaarno qarni jirka waa keenay ka bacdina waxaan keenay wadadii iyo dariiqii loo mari lahayn waa calaamaynay waa keenay ra'yigeed NTP yaa la yiraahdaa National Transformation Plan yaa la yiraahdaa waxaan dhahnay aan yaryaraysano aan shan sanaysano oo 5 sano inta aan dhaafno 5 kalena xagga aan gaarno 5 ba aan meel xoog saarno adeegyada bulshada aan xoog saarno infrastructure-ka aan mar kale xoog saarno mar kale aan maxaan ku raadaay xoog saarno dhaqaalaha iyo khayraadka iyo horumarka xoog saarno marba wax aan xoog saarno si aan ku gaarno 100 sano jir markaan noqono meeshaas maxaa generations ka imaadoono maalin dadka inta fafadhiya caawa aanay joogin waay maalintaan ka hadleen ma ogtahay in internetka shirkadda Golis ay ku keentay uu yahay internetka ugu xawaaraha sareeya dalka iyadoo macaamiisheeda u diyaarisay 3 fiber cable kaasoo gabi ahaanba meesha ka saaraya in marna aanu ka go'in internetku shirkadda Golis waxay diyaar kula tahay inay ku geliso gurigaaga xafiiskaaga iyo meheradahaaga kala duwan garaac 181 oo hadda dalbo internetka ha qabtira baahiyahaaga internet adduunkan aad kula xiriirtid mar walba